القلعة، وأشكرك جزيلا على احترامك وتقديرك اللي عملتونا أخوانكم الصوماليين، وشكرا جزيلا يا فنان. مرحب بك كثير، وأنا سعيدة كمان بزيارة الأخ الحر التجاري بالمكتب الخاص بتاعي، وسعيدة بكل الشعب الصومالي، وشكرا كمان على الهدية من شعب الصومال، الهدية زي ما انتم شايفين هم، وان شاء الله الشعب الصومالي يترغبني عن غريبنا في وحالة بالدعوة ان شاء الله، وهو جاي من عن طريق السفارة الصومالية بدعوة خاصة لينا للمشاركة احتفالات في دولة الصومال. وإن شاء الله أنا بقول لكل الشعب الصومالي أنا بحبكم شديد، وعندي كثير من الجمهور الصومالي على الصفحات بتاعتي. إن شاء الله قريب ينتظروا زيارتي للصومال، وأكون بيناتكم وأحكي لكم كل الحب السوداني، وترجم لكم حبي أنا عن طريق الفن بتاعي. madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego ayaa ku booqday xafiiskeeda fanaanada weyn ee caanka ee reer Suudaan Nada Qalca, isagoo kala kulmay soo dhaweyn diiran. Waxa uuna kala hadlay madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya sidii kor loogu qaadi lahaa isdhexgalka bulshada oo qayb ka yahay fanku. waxa kale oo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya uu sheegay in labada dal ay lahaan jireen xiriir faneed oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan, taasina ay lagama maarmaan tahay in dib loo soo celiyo. sidaa daraadeed waxaa hanaan kasta oo wanaagsan oo wadan leeyahay waxaa lafdhabar u ah fanka. iyadoo laga duulayo taas, waxa uu ku bogaadiyey madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya inay booqasho ku tagto dalka Soomaaliya si loo horumariyo loona sameeyo isdhexgal dhan kasta leh oo ugu horeeyo fanku, isla markaana kor loo qaado isdhexgalka fanka ee labada dowladood. gabagabadii kulanka ayaa fanaanada reer Suudaan waxa ay madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan u muujisay soo dhaweyn iyo qalbi furnaan. sidoo kale waxa ay hambalyo u dirtay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxayna ay aqbashay inay tagto Soomaaliya si ay uga qayb gasho horumarka ballaaran ee ka socda dalka ay wado dowladda Soomaaliya. ugu dambeyn, madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ayaa fanaanada guddoonsiiyey dharka hidaha iyo dhaqanka iyo agabka kale ee Soomaalidu dhaqanka u leedahay. Axmed British, warbaahinta qaranka, Khartoum, Suudaan.